يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يوتيوب كيني شيخ حسن أيان ولي مركا كجرنا qaastan qaybihii riyooyinka ayaan kaga sugannahay xalaqadii 45aad ayaanu ka baxnay oo waxaanu gelaynaa qaybtii 46aad ee qaybta riyooyinka fasiraadeeda tirsigii hore aan ku wadnay ayaanana kusii soconaynaa ilaahay idinkii 20 baanu maraynay qaybtii 45aad 21 riyadeeda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh xasan ibraahim see tahay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبان في عنه ولال شيخ لبهبين أيا وحن كل رياضي ريو أن لا يابي ويل أبتجي كره أودالي أو إيجور سنايا أيا كل رياضي ويل كاسنا وناكم أجيبي تري أنا وابا لا إقبا وحا كدران إنتا أن كل رياضي هبين كلانين فنان أو أنكو أركي social media oon baska wada degaynay kadib guri ayaan galnay wuxuu rabaa inuu ila hadlo weliba hadalo shukaansi camal ah waxaan leeyahay wiilkii dareenkiisa ayaa kacay oo shahwadiisii ayaa dhulka oga daadatay anigana waxaan raadinayaa waxaan ku tirtiro kadib wiilkii wuxuu ila eg yahay qof isqarinaya wado laamiya ayaan gudbaynaa waxbaa la tusinayaa aniga oo wadadii goynaya ama gudbaya oo weliba caatana waanba ahay haddaadan caadi weliba caato caadi ah weliba dhafoorkayga kuma qanacsani sidaan caato u ahay wariyadiye sheekh xitaa heesaha ma dhagaysto weliba caataan ahay caatana waanba ahay haddana caadi weliba dhafoorkayga kuma qanacsani sidaan caato u ahay wariyadiye sheekh xitaa heesaha ma dhagaysto waxaan jeclahay ragga dhowrsan haddana riyadan wayba iga yaabisay sheekh ilaahay indhahaaga nuur ha kuu saaro cilmigaagana ha kugu anfaco riyo shaytaan waay riyooyinka qaar waxaa jira xalam lagu tilmaamo ama xulum oo ah dhabdhab wamaa naxnu bita'wiili axlaami bicaalimiin waatay dhaheen nimankii nabi yuusuf boqorkii markuu riyada arkay waxaa kaloo lagu fasiri karaa imraa cafiifa ah gabar dhowrsan ahlu khayr ah ahlu diin ah inay gabadhu tahay riyada 22aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh waxaan ku riyooday anigoo jawaan wax ku jiraan dhabarka ku wada jawaan cad kadibna waxaan ku kufay dhiiqo ama biyo meel ku jiraan naaga ayaa ku dhahay iqabta wayna igu qosleen oo iga tageen kadib waxaan arkay bir weyn oo halkaa ku dhegan waan qabsaday oon ku istaagay waa intaa riyada waxay leedahay gabadhu ee deris xun jaar suu ah waxaa kaloo lagu fasiraa dembiye iyo macaasi qofku markuu wax qoorta ku qaado ama dhabarka liyaxmiluu awsaarahum waxay xambaarayaan dembiyaalkooda dhabarkay ku qaadayaan waatii aayaddu ahayd
marka insha allahu tacaala wixii xumaan ahna ilaahay ka magangal. qof u dulqaadata dhibkana waa lagu fasiraa dadka dhibkooda qof u dulqaadata inay tahay inanta haddii qof dumara tahay wiil hadduu yahayna uu u dulqaato dadka dhibkooda. riyada 23aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. sheekh salaan kadib riyadayda waa sidaan, waxaan ku riyooday gabar walaashay ah oo aan isku hoganayno ama aynayno jazaaka allahu khayr, aan ooynayno inay tahay waa suuragal, hoganaynase waxaan leeyahay qofkaan riyadaada ku soo celi insha allahu tacaala, raallina naga ahaw. riyadii 24aad assalaamu calaykum sheekh xasan jazaaka allahu khayran, sidaad iigu soo jawaabtay walaalo. waxaan rabaa walaal 3 riyo inaad ii fasirtid haddii allah idmo. riyada koowaad walaal waxaan haystaa wiil autistic ah, ilmaha hadalku ka raago, hadda waa 15 jir. markaas 3 bilood ahaa ayaan ku riyooday isaga aan waayay oo dibna aan u raadinayo, anigoo ruclaynaya amaba ordaya buur laalaab badan oo cidhiidhi ah. sidaan buurtii ula wareegsanayay ayaan ku soo baxay meel bannaan ah oo waasic ah, isagoo weyn qiyaastii ilaa 18 jir ah oo la taagan wiil ay saaxiiba yihiin. riyada dhexdeeda iyo aabbihii wuxuuna la sheekaysanayay wiilka saaxiibkii ah. markaasaan riyadii ka soo toosay. sheekh maxaad ku fasiri lahayd riyada? bishaaran kugu fasir lahaa insha allahu tacaala in canuga ilaahay oo ka hadal siin doona ilaahay idinkii subxaanahu wa tacaala, awoodda ilaahay baa iskale. riyada labaad waxaan ku riyooday bay tiri hooyaday oo dhimatay, allah u raxmadee, oo casuuntay 2 ilmo adeeradeed ah cuntadoodii oo waqtigaa dad dhalinyaro ahaa oo ay daaradda neef ari ah ugu qalayso oo ay casuumadda ugu tala gashay. aniga iyo wiilashii iyo gabdhaha ay casuuntayna aanu aad u faraxsannahay oo isla sheekaysanayno, gurigana isla hagaajinayno. markaasaan riyadii ka toosay. sheekhtaana maxaa lagu fasiri lahaa ama aad ku fasiri lahayd? ilaahay ha ku xafidee. ayadan waxaan ku fasiray in maamadaa dhimatay sadaqo loo bixiyo, wax kaloo dhib oo weyn ma jirto. haddii loo bixin jiray xataa in markaa loogu daro. riyada 3aad waqti dheer ayaan ku riyooday wiilka iga xanuunsan aabbihii oo aanu kala tagnay. markuu aad u yaraa ayaan habeen ku riyooday ninka aanu kala tagnay oo caruur badan la socdaan oo gurigayga soo galay. aabbahay allah u raxmado oo fadhiyey qolka fadhiga uu salaamayo oo ay isku faraxsan yihiin, anigana aan u cadhaysanahay riyada dhexdeeda oo aan ku leeyahay maxaad dhinaca fadhiga uga soo gashay guriga oo aad iridda horay uga soo geli weyday. kadibna riyadii ayaan ka toosay. sheekhtaana maxaad ku fasiri lahayd? ilaahay ha kaa raali noqdo, jazaaka allahu khayran sheekh xasan ibraahim. qaybta 3aad waxaan kugu fasiri lahaa ninka aad kala tagteen oo wiilka aabbihii ah, haddii uu joogo hamina uu markaa jiro, dhibaatadii lagu kala tegayna ee baaba'ayso, in laysku soo noqdo inay wanaagsan tahay. riyada taasi markaa kuu tilmaamaysaa adiga ma dhihin maxaad u soo gashay guriga, laakiin waxaad tiri maxaad daaqadda uga soo gashay ood albaabka uga soo geli weysay. waa soo dhoweyn. aabbana wuu la fadhiyey, wuu la faraxsanaa. marka taana saasaa markaa lagu fasiraa insha allahu tacaala. riyada 25aad assalaamu calaykum sheekh, khayr allah ku siiyo. waxaan ku riyooday riyooyin badan. midda koowaad 3 bilood ka hor waxaan ku riyooday anoo hurda baa nin hogaamiye ciidan dal islaam ah i toosiyey oo i yiri kac u tarjun gabdhahan. waxaan idhi hal luqad baan ku hadlaa
waana Englishka wuxuu yiri waa loo baahan yahay aanu meel dhexe anagoo meel dhexe sii maraya baa madaxweynihii ninka ciidanka ah i amray in aan u tarjumo qof kale kadibna waan raacay oo waan u soo tarjumay kadibna qof islaantii gabar ay dhashay oo aan aqaan baa iga hortimid islaantana way dhimatay mar hore kadibna waxaan arkay gabadhii hore waxaan weydiiyey ma heshay qof kuu tarjuma waxayna igu tiri haa oo wiilkaas baa ii tarjumay riyada 26aad hore la socotaa baan filayaa sheekh riyada labaad waxaan ku riyooday dalka aan joogo ra'iisul wasaarihiisa isagoo gurigayga igu yimid maxay ka dhigan tahay si aan u ogaado in ay ina soo gaartay may isjoog Soomaaliyeed qaybtan dambe ma fahmin wiilka waxaan filayaa hadda ka hor riyo noocan oo kale inuu asaga in kale nin aan ugu fasirnay inuu siyaasadda aad u jecel yahay madaxweynayaal iyo waxyaabo noocaas haddii ay meesha yimaadaan haddii si kale aan ugu dhigay riyada waxaan wiilkan ka codsanayaa si qaas ah ama gabar hadday tahayba inuu taleefanka igala soo xiriiro insha allahu tacaala riyada 27 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حسن وانكو سلامي شيخ وحان إن بدن كريوضا أما كريوضا أنا كرات إيو قرعنايا وليبا كراتك جيد أيان كقرانيا محين نقون كرتا شيقنا عريري جري أولا قبحا ونقونيا إن شاء الله تعالى حق دقالها حق متقانا قرق أرميهيسا كاسو إلهي كبدلي دونه خير وناك إن شاء الله تعالى رياضة لواتن إسديد الشيخ وحن كل رياضي لبها بين أنيقو دمر كله هدي أن لعق هلو حج كان تجيا هدان هبين كي كلنا أيان كل رياضي أنيقو دهيا حج كان تجيا شيخ يفسر دين جرتي أيا قفك كجود ميس إن شاء الله تعالى حنون جرينا وكعافي ماذا إن شاء الله تعالى فخر جرينا وكتاجري انت سلقوقو فسيريا إلهي إذنكي شيخ رياك له 7 عشو أيان قرآن اسكو أخريي أو وان كو قبيستي هبينكي قدام بيسي أيان ريا وحان كو أركي أنيغا أو قف أن أركي لهدلايا أيا وحان أركي مسوين أو أفكا فرتي أيان لغهيغا كو استاغي كدب وان قيليي dharka hoos ayaan iska saaray kadibna waan qabanay ani iyo walaashay oo waan dilay oo waliba meel hoga ku aasnay sheekh fasir ilaahay khayr badan Allah ku siiye waxaan ku fasiraynaa cadow rabay inuu dhibaato ku geysto oo ilaahay guulka siinaya insha Allah inuu markaa jiro riyada 26aad assalaamu calaykum sheekh riyadani ii fasir gabar saaxiibtay ah waxay ku riyootay habeen anoo lugaha ka go'an oo isbitaal jiifa oo ay ii soo booqanayso oo ay dhahayso oo la dhahayo way dhimatay sheekh maxay noqon kartaa riyadan sheekh Allah ku barakeeye laban u kala qaadayna haddii qofka riyada arkay ay tahay qof gabar ah ama azubi ah wali la guursanin soo noqod baa lagu fasiraa qof safray uu u soo noqonayo waxa kale lagu fasiraa shifaa iyo daawo qof xanuunsan uu caafimaadayo qaybta labaadna waxa lagu fasiraa ama ay noqon kartaa dhicitaan uu dhacayo azma maaliya ah waadi qof la qaba ay tahay xagga dhaqaalahooda oo hoos u dhacaya gurigooda iyo wixii markaa ku dhaqmayeen saasna markaa way noqotaa riyada ku xigta waa riyadii 29aad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ حسن إبراهيم عيسى أدبان كو جعلاي الله كو جعلاده إلهي درتي سانا كو جعلاي شيخ حالي وحان كو رياضي أما أن كو رياضا أنيقو دوكسي جوغا عيالك دوكسي جانا أن صف
ay saf ku jiraan ciyaalka dugsigana ay saf ku jiraan ciyaalka dugsigana ay saf ku jiraan macalinka dugsiga oo ii leeyahay ciyaalka magacayaashooda qor anigana ma aqaano ciyaalka magacayaashooda macalinka wuxuuna qof waliba ka codsanayay inuu safka galo sheekh safka saf aad u dheer waaye anigoo safka ku jira ayaan hurdada waan ka soo kacaa sheekh waan ka xumahay haddaadan ifahmin qoraalkayga aniga af Soomaali aad uma aqaano sida loo qoro laakiin ku hadalka waan ka fiicanahay qosol yar buu qoray wiilka sheekh ha u bixin yaa wiil 17 sano jir ah ayaan ahay ii fasir riyada sheekh xasan ibraahim riyada riyo wanaagsan ma aha waxaan kale waxa lagu fasiraa akl maal xaraam ah cunitaan xoolo xaraam ah ayaa lagu fasiraa waxa kale lagu fasiraa ilaahay ha ku xafido 17 sano jir baa tahay irtikaab almacaasi dambi gelitaan waxa kale lagu fasiraa qof ay soo waajihaysa mashaakil iyo dhibaatooyin uusan qofka awoodi karin ama dayn inuu iska gudo uusan markaa awoodi karin say noqoto wiilkaaga yarow khayr fara badan Allah ku siiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayr fara badan baan kaaga rajaynayaa hadday dhab tahay oo riyo kaliya aysan ahayn oo ay jiro dugsi aad dhigatood macalinka caawisana aad iyo aad ugu dadaal riyada soddonaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh gabar ayaa iisoo dhiibatay riyo in loo fasira ayay u baahan tahay waxay tiri waxaan ku riyooday aniga oo lay aroosayo mabruuk arooskii dhexdiisaba waxaan la kulmay nin hore oo aan kala tagnay oo macabis kaliya qaba ayaan qolka ku wada jirnaa waxaana isku qabsanay cadar ama barfoon waxaan leeyahay isii cadarka wuxuuna idhahayaa kan aniga jecel ee midkan kale hoo markaan ka qaadanayo wuxuu noqday kareem markaan ka qaatay kareem buu isku bedelay kadibna hadal buu isku celcelinay markaa kadib baa wuxuu idhahay ishumi idhunko anigana waan shumiyey dhunkaday kadibna waan dhoola cadeeyey asagana waa uu dhoola cadeeyey markaas buu aruursaday wixii barfuun ahaa oo meesha ii yiilay markaabaa niyadda ka dhahay waxaanoo dhan ma wadanine halkee u wadaa riyada labaadna waa sidan waxay tiri waxaan ku riyooday ayeeyday oo dhimatay goor hore ayadoo ii yeerayso oo idhaysa gabadhaydiyey waan kuu xiisay waana ku jeclahay waan ku sugayey maxaa kugu dhacay waxaana i garab fadhiyey habaryartay iyo gabar ay dhashay oo wejigooda aad iyo aad u madoobaaday ama u madow yahay markaas baa waxaan ku iri hooyadii i dhashay waxaan leeyahay inta kale inay qabyo tahay baa suuragala qaybta hore haddii xaqiiq ay tahay oo arooska uusan jirin oo lagugu riyoodo adoo lagu aroosaya arooskiina odaygii hore uu yimid in ay wanaagsan tahay bay riyadu tilmaamaysaa odaygii hore inaad ku laabato haddii ay xalismayso dhibaatadii markii hore lagu kala tegay barfuunka siintiisa iyo dhunka waxay keeni kartaa jecel cusub inuu markaa jiro waad dhoola cadeysay asagana uu dhoola cadeeyey maxaa kaloo dhiman waxba dheh riyada 31 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh xasan waxaan ku riyooday anigoo maamo habaryartay wiil ay dhashay ila roorayo ama imasaafeysanayo oo la ii diidan yahay oo 4 wiil oo midkood walaalkay yahay midna habaryartay dhashay iyo laba aanan xasuusanin dheh na soo raadinayaan aniga iyo wiilkii waxaan imaanay meel biyo ah ama malaha ma xasuusan na soo raadinayaan aniga iyo wiilkii waxaan imaanay meel birya ah
ama meelaha askarta ay baabuurta lagu joojiyo camal ah. Meeshii markaan soo gaarnay, ani iyo wiilkii nal weyn ayaa na iftiimiyey oo zaa'id noo qabtay. Iftiinkiisana waaba zaa'id. Wiilka waa wiil cad oo timihiisa bis madow wihin. Aad ayuu u qurux badan yahay. Waabana iska jeclaaday riyadii dhexdeeda. Waana la i qabaa oo xaas ayaan ahay. Sheekh alle awlaadda ha kuu xafido. Maxay noqon kartaa? Riyada noocan oo kale wax badan baanu soo fasirnayo. Xubbiga iyo jacaylka ninka iyo naagta isku qabaan ka naagta fara badan. Macnaha gabadhan jacaylka ay u qabta ninkeeda waa jacayl badan. Asaga laakiin midda uu u qabo yaa markaa yar. Taasa marka waxay keenaysaa qofka inuu wax badan ku riyoodo xaaskiisa. Asaga markuu riyoonayo xaaskiisa oo nin watay ama nin la jiifa ama nin la fadhiso. Ayadana ay ku riyooto ayadoo nin watay saan oo kale ama nin la fadhiya ama xaalad noocaas oo kale. Xataa kufsi baa imaan kara isla jiif xaaladdu markay saa tahay. Marka taasa markaa lagu fasiraa riyada ayada ahna. Riyada 32. Assalaamu calaykum sheekh waxaa xaaskayga ku riyootay ayadoo sadaqo xajka ku bixinayso oo ay la socdaan hooyadeed iyo wiil ila dhashay. Wiilka ila dhashay ay $1 siinayso. $1 ayayna dadkoo dhan u qaybineen. Maxaa lagu fasiri karaa shiiqow? Khayr Allah ku siiye. Waxaa lagu fasiri karaa qofku markuu sadaqo bixinayo weliba xaramkii meelo fadli badan uu ku bixinayo, qofkaasi inuu ka takhalusmaayo ama ay ka baaba'aysa balaayo imtixaanaad ku soo socday. Shifo iyo caafimaadna uu helayo jiro markaa jirtay. Riyada 33. Assalaamu calaykum sheekh, Allah ka raali noqdee. Xaaskayga mar kale waxay ku riyootay ayadoo sadaqo siinaysa ilmo deris aan ka ahayn xaafad aan ka soo guurnay. Lacag walbo ciyaalka mid ka mid ahayn 2,000 siinayso. Ina soo fasirtaasna tii hore markaa la mid tahay, way kala ajir badan tahay, way kala manaafacaad badan tahay. Tii horena xaramka lagu bixinayay ama xajka, midaana waa ciyaal xaafadeed. Marka ayadana waa dhibaatooyin ay qofku uu ka badbaadaya insha Allah tacaala. Riyada 34. Assalaamu calaykum sheekh, mar kalena waxay ku riyootay xaaskayga ayadoo xajka joogta. Waxay rabtay inay Kacbada u dhawaato waana laga qarinaa. Waxay isku dayaysaa inay gasho weliba ayadoo iska dhigayso xamilo. Dad badan kadib way arkay wayna dhunkanaysaa. Kadib ayaa lagu dhahayaa ma ahan Kacbada waa dhagax madow. Wayna kala furay indhaha. Kadibna waxay arkaysaa qabri diyaarsan. Meeshan ayaana lagugu duugayaa ayaa niyadda ay ka dhahaysaa. Wax yar markii ay socotana waxay dhahday ayadoo lagu dhex gubayo xajka. Inoo fasir sheekh ta ayada ahna. Indaar baa la yiraahdaa riyada noocan oo kale ah. Waa digitaan. Qofka waxaa looga digayaa inuu ka fogaado xumaanta. Ahlu iimaan inuu qofku noqdo. taana way tilmaantaa dheh. qaybta hore waa digitaan. Waxaa kaloo talabaadoo lagu fasiray ay tahay qofka inuu yahay qof iimaan raasikh ah markaa leh. Dhagax madoobaadka la shumiyo oo Kacbada lama shumiyo. Taasi waa sax. Midda kale waxaa la tilmaamaa qof iimaankiisu adag yahay gabadhu inay tahay. Iimaankaas adagna imtixaan uu ku soo gaarayo waa gubniinka Kacbada dhexdeeda ah. Ma gubitaan cadawtinimo iyo dhibaato loo gubayo, balse qof imtixaan ka soo gaarayo diinteeda. Qutila asxaabul uqduud annaari dhaati alwuquud oo kale taa markaa loogu fasiro. Khayr wanaag Allah ku waafajiyo. Riyada 35. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh. Shiiqayga alla dartii ayaan kuu jeclahay. Riyadayda waxa waaye badanaa waxaan ku riyoodaa meel weyn oo biyo fariisan ah ayaan wiil yar kula noolnaa. Kadib ayuu dagaal igu bilaabaa. Ayaan wiil yar ku kulannaa. Kadib ayuu dagaal igu bilaabaa.
mar walbo markaasaan gurigooda aaday wiil walaalkiis ka weyn ayaan ugu dacwooday markaa ayuu igu dhahay haye waan kaa ceshanaynaa wuxuu iga ceshtayna ma lahan haddana beri sidii ayuu dagaal iigu bilaabaa assalaamu calaykum sheekhayga aan jeclahay ilaahay ha ku jeclaado laba aan u kala qaybino hadday tahay gabar aan la qabin waxay tilmaamaysaa guurkeedu soo dhowaaday insha allahu tacaala dulmigaasaa lagu dulminayo waa dulmi wanaagsan mutasawijta hadday tahay gabar la qabana waxaa lagu fasiraa xamli iyo uur dhow inuu imaan doono mutasawij mataqaanaa gabar mutasawij ah oo zawjkeeda macnaha gabar oo mutasawijo ah haddii ay tahay waxaanu niri gabar aan la qabin dulmiga wuxuu tilmaamayaa ama ninkaa kula dagaalaya meesha biyaha weliba leh in gabarta guurkeeda uu soo dhowaaday gabar la qaba hadday tahayna xamli oo qariib ahoo dhow macnaa uur dhow inay qaadi doonto ilaahay idinkii haddii ay tahay gabar la qabo oo uur lehna inay dhalaysa gabar saasay markaa yidhaahdaan riyada 36 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh xasan ibraahim allah ku xafido allahuma aamiin adduuniya aakhiraba gabar baan ahay waxaan ku riyooday anigoo soks caddaan ah ama iskaalsho caddaana xiranaya riyadayda labaad waxaan ku riyooday roob zaa'id u da-aya anna sijaayadayda aan soo qaatay markaas ayaan dhigtay kadibna nebi moxamed nebiga ayaan ku saliyey dheh markaas ayaan walaalahay ku dhahayaa kaalay roob baa da-aya aan ducaysano nebigana aan ku sallino sheekh allah ku barakeeyo maxay noqon kartaa riyada ayada ah iskaalshada cad ay xiratay waa helitaan xoolo u xafid maayo weliba iskaalsho lugta lagu xafidaa marka xoolo u xafid maayo oo wanaagsan helitaankeeda ayaa lagu fasiraa haddii ay jeexjeexan tahay laakiin oo iskaalsho duleesha ama jeexjeexan ay tahay waxaa lagu fasiraa waa camal xun iyo akhlaaq xun labadaasaa loogu kala fasiraa roobka da-ahaya waa naxariis ilaa agtiisa kaaga imaanaysa insha allah nebiga aan ku salina aan ducaysano waa camal wanaagsan ayadana weli bacdimaa dadkii aad ku dhahday qof daaci noqon kara ama noqon doona inaad noqoto iyo markaa u dhowaanaysaa ilaahay idinkii riyada 37 assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sheekh xasan ibraahim ciise wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waan ku salaamay waan kaa qaaday allah kaa raali noqdo adduuniya aakhiraba waxaan ahay gabar walaashay ah ayaa dhowr mar iigu riyootay dahab la ii keenayo maxay tahay riyada jazaaka allahu khayr riyo wanaagsan ma aha ilaahayna ka magangal subxaanahu watacaala waa arrin muruga leh oo aan fiicnayn oo qofku maqli doono keenitaanka lagu keenayo dahabka waa ri aan ilaahay laga magan galo riyada 38 assalaamu calaykum sheekh allah ku barakeeyo waxaan joogaa Kenya waxaan ahay hooyo haysata hal wiil lamana joogo reerkayga oo waxay joogaan Soomaaliya meeshaan waxbarashaan u joogaa waxaan filayaa riyadan waanu soo marnay qaybta ta ka horeysa ama ta ka sii horeysa labada mid ka fiiri walaal insha Allah tacaala mar dhow ayna soo martay riyada ugu dambeysay ee 39 assalaamu calaykum sheekh xasan ibraahim ciise ilaahay ha ku barakeeyo waxaan ku riyooday ani iyo walaashay oo wada socona ayaa waxaan arkay geed dacar ah kadibna waan ku leexanay inaan soo jarto dacartii ayaan rabay waxaan raadsanayay mid bisil gacanta ayaan ku taataabanayay waxaan dhahay dacarta tiinta ayay bixisaa walaashay midkan qaado ayay igu dhahday waxaan dhahay midkani ma fiicno wayna jeexan tahay intaan soo jaran ayaan qof arkay waana ka cabsaday inuu yahay qofkii lahaa geedka dacarta ayaan u moodayay qofkii wuu iska baxay oo ma ahayn waxayna noqotay ayeeyo aabba dhashay waan u wacnay waan raacnay ani iyo abaayaba ayaga way sii degteen jaranjarada ayay kasii degteen dheh anna waan ka dib dhacay ayaga bannaanka ayay tageen kadibna walaashay ayaa weydiiyey xaggee ka baxdeen ayaan dhahay hoos ka soo bax ayay igu dhahday kadibna
kadibna xabad ayaa ugu soo kadibna xabad dheh ayaan uga soo baxayay. Qoorta markaan kala soo baxay ayay igu dhegtay dhulka, ayay igu dhejisay sidaa ugu rafanayay. Markii dambe waan ka soo baxay, waxaa isi soo raacnay wax culus ayaa isoo raacay oo culus badan oo xarig ku xiran. Madaxa ayuu ii surmay, anigana sidaan ugu rafaadayay waa iga degtay. 2 wiil oo 15 meelahaas ah way i ag joogeen inay iga saaraan waxa culayska ah oo duudkayga saaran ayay rabeen inay iga qaadaan ama inay iga saaraan baa markaa qoran ayay rabeen, laakiin way gaari waayeen. Asilee iga degtay. Sheekh riyada way dheer tahay, laakiin intaa ayaan ku soo afjarayaa. Inaan ku dhibo ma rabo, haddaad ku dhibayna oo kugu dheeraaday cafwan sheekh. Riyadu aad iyo aad bay u qaab daran tahay, riyo wanaagsanna ma aha. Waxay tilmaamaysaa marka horeba tuuganimo iyo meel wax laga xadaayo. Sababtu waxay tahay qofku wuxuu ka baqay qofkii lahaa inuu yahay, marka waxaad ka dareemaysaa meesha xaditaan inuu markaa jiro. Marka camal xun oo aan wanaagsanayn, tuuganimo keligeed ma aha, wax nooca lamid ah dhici karta in qofka uu ku dhaco, laakiin Allah ku xafido. Waxa culayskii dhabarka kaa saaran waa dembigii, waxaa la soo bixi weysayna waa taasoo kale. Marka insha Allahu tacaala gadaal isku fiiri, cibaadaadka wixii halaysan ama nusqaan ay ku jirtana dib u hagaaji insha Allahu tacaala. Allah ku xafido. Meeshaas aan ku soo gabagabaynaynaa xalaqadii kale. meesha inoo joogto. wabillahi tawfiiq, wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.